faahfaahsan oo rag khibrad leh oo rag hawsha wadi ay ka doodeen laakiin ujeedadiisu waxay ahayd wixii inaga tagayna in la qiimeeyo waxa soo socda ee hadda la wajahayana sidii loo wajihi lahaa la isla garto oo la qiimeeyo oo wax weeyaan warqad lagu qorto nin walbana suriintii uu mari lahaa iyo wuxuu qaban lahaa loo tilmaamo intaas bay muhiimadiisu ahayd cadawgana sidii loo burburin lahaa nin walba waxay qaybin tunku ku wata maxaad ugu baaqaysaa shacabka Soomaalida ogaadeen iyo gudaha iyo dibadda waxaan rabaa inaan u baaqo horta kooxdaana shacabka ogaadeen iyo u baaqan waxaan rabaa inaan Soomaali weyn u baaqo Soomaaliyay wadanka waan wada leenahay weligeena waynu wada lahayn waxa 4.5 loo yaqaan Soomaaliya gudaha ogaadeen iyo intaas way wada degtaa waynu wada leenahay wadanka xuduudaha jirana xuduudaha inagu isugu nimid oo inagoo Soomaaliya aynu niri idinkuna inta qaata ma ayna jirin cadawga ayna qaybiyay Soomaaliya markay burburtay waxa la burburtay Soomaalinimada iyo aqalka saliimka iyo iswada jirka iyo duubnaanta burburtay waagi leeyna wada gumaysanayay dadkii ugu sumcad badnaa gobolka ogaadeen ka dhasheen tusaalahan Sayyid Cabdullaah Xasan oo kale ogaadeen uu ka dhashay ragga kii uu magac dheeraabo ahaa gabdhaha ta uu magac dheeray xawata ka yahay iyaduna gobolka ogaadeen ku dhashay ka dhalatay marka waagaynu cadawgu in wada gumaysanayay ogaadeen iyo Puntland Somaliland iyo waxa weeyaan meesha ay la baxday iyo waxa weeyaan koonfur iyo Djibouti inta waan wada dagaalamayay kolkay labada gobol xoroon kuwi kale ay xoroobeen hatta waynu wada dagaalami jireen inta Soomaaliya burburin 7-7 u dambeeyo Soomaaliya way wada dagaalantay walaalayaal Soomaaliyeed waxaan idin ka codsanaynaa wadanka waa wada leenahay balaayada noo dhex fadhiistay Somaliland iyo Puntland cudurka Ethiopia ay meesha noo fariisiyeen waxa weeyaan Soomaalinimadii iyo sumcadda Soomaalinimada burburinaysa waa xilligii ugu horeeyay ee qof Soomaaliya intii cadawgiisa loo Ethiopia loo gatay waa xilligii ugu horeeyay وحلقي نجوري قفل الصفرينية قبل الصفرينية أما نيل الصفرينية الصومالية وحن قعد سنينا وروضة كوان وضلين هاي نكان وحنا قلت رنينو ردان بالنجدة وجونا بطلان الصومالي لاني واحد سميسان ويدين تهلا وأنا والله هو إن ما كانوا يدين عن قادنا إن نقول إله إرجع عددي أين نقول لهم الدي الله يلحظ أو إثيوبيا waxa la yiri xeerada waranka salka iyo ka isha mid kale iska gooyay ka aan fariista horta salka Ethiopia maalinkan fariisino hadda tunka idinko waliba shacabka waxba uma qabno idinko kabaha madax ku wada hadda dhiman weydaan ilaahay waxaan ka bari inaan waliba inta noolaada anigu iyo ragga ila midka sidii u careysan waxa nagu sameeyay Puntland iyo Somaliland xukuumadaha xunxunka baqtiga fadhiidka Hargeysa dhex fadhiya iyo muxuuha iyo garow marka kuwa waxaan oran lahaa kuwa Soomaalida ee xukuumada baqtiga hoos fadhiya ee Somaliland iyo Puntland diida waxa la dhiibay la gadanaya waa dadkiini isku dal iyo isku diin iyo isku dadna wayna intaas baan ku oran lahaa waxa kale oo rabaa inaan baaq u fidiyo ummaddu xoog baa ummaddu isku tixgelisa ummadan guuta wax weerarta lahayn waxba cid ka aqbalamayso koow waxaan leeyahay ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenayo haddaad rabtaan inaad wadankiina aynu wax u qabanno haddaynu rabno qaxootigeena kala baxsada iyo dadkeena kala cararay inaynu soo celino haddaynu rabno cadawgeena inaynu ka adkaano ciidankeena aynu xoojino shacabka ogaadeenayna dhamaantii waxaan leeyahay ciidan baad leeyihiin ciidankiina gacanta ku dhiga dhaqaalihiisa siyaasadiisa nidaamkiisa haddaynan xooggeena dhisan weligiin gumaysi kama baxayno ciidanka oo istiyaari shacabkoona ciidankiina dhiso waxaan rabaa inaan dad intaasaan oran lahaa ciidanka una sheego haddaynan xooggeena wax iskaga bedelin cid wax naga bedelaysa ma jiraan dadka dibadda waxaan oran lahaa si fiican warar fiican baa nooga keenimanaya waxa weeyaan xurriyaan idinka dhageysana sida kalaan iskaarsiinta iyo wixii caalamkaas ku xiran shaqada si fiican baad u wadaan laakiin weli xogaa banaan baxiyo xogaa dhaqaale iyo siyaasad iyo waxyaalahaas way u jiraan laakiin waxaanu tabaynaa waxyaalo badan waxa kamid ah qaxootiga dabaqoodigan anagu soo cayrinay oo farxadaba idin imanaya waxa loo leeyahay hal nin oo atuuri kaga tagtaan oo baqtiyo oo la yiraahdo Yurub baa lagu gowracay ama waxa lagu dilay Mareykanka caalamku uu wada dilayaayo waxa weeyaan intaas oo qof oo Mareykanka lagu dilay baan maqlaynaa ama Ingiriiska lagu dilay hal dabaqoodi oo naga soo cararo farxada maxaad gowrici laadiin oo ayuha ay dhalo sida inay leeyo kala oo waran la anagu iyagoo nool qoriyo wataan u leenaynaa marka waxoogaa waad shaqeynaysan laakiin intaas way ka maqan tahay shacabka gudaha jooga waxaan oran lahaa
sidaa aadtiinha bedelina inaad halgankiina taageertaan cadowgiina gumaysigiisa gulgulkiisa inaad u samirtaan inaad waxa weeyaan dhaqaalaha iyo aad bixisaan inaad idinkaa sahana idinkaa dhaqaalihii waddanka idinkaa xooggiia ciidanka baxaya reeraha ka soo baxaya reeraha waxaan leeyahay sidaa aadtiinha bedelinina dagaal haddaan dagaal waxaa guulaysta ninka u samra dagaalka waxa ku ninkii u samraa guulaysta tusaalaan kolka xabad u dhacdo 20 daqiiqo ciidankiisu ninkuu samraa guulaysta oo gobaha u haray dagaalkii marka wuu dhacay raggeennii wuu shahiiday gabdhaheennii waa la laayay dadkeennii waa la laayay waxaan odhan lahaa waa guul walow inaan calaacala aan rabin oo aan idhaahdo waxbaa laynaga dilay waxba ninkii xataa inaga laynaga dilay wuu shiid jannu galay waxba inagama dhimin walaa taquulan lama yaqtulu fii sabiili amwaatan bal axyaan way nool yihiin dadkeennii inaga tegay waxa baktiya waa gaalada waxa weeyaan iimaanka beeshay waxa weeyaan la cadaabaya kii baktiya la cadaabi nool aan waxba ku noolayn kuwaasaa dhimanaya laakiin inagu ma dhimanayno waddankeennii baan joognaa waxaan leeyahay sidaa aad tihiin ahaada cadowgiina iska celiya waana guul iyo gobonni baan isku ogna aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta duufaan naftuhure maxamed ani oo nooga warramaya xaaladda guud ee Ogaadeenaya iyo xaaladda Itoobiyaba